Shiraa'idu qabtay siyaasiga caanka Xasan Geerash ayaa ka hadlay muddooyinkii u dambeeyay dilal ka dhacay magaalada Laascaanood kaas oo ah dilal qorshaysan oo aan qabin. Xasan Geerash ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Sool inay wax ka qabtaan dilalka loo geysanayo dadka aqoonta u saaxiibka ah. Wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxaan ka hadlayaa xaaladda Laascaanood ka jirta muddadan dabo dhan oo colaada ah iyo mageydada la leynaya habeen walba suuqa dhexdiisa. waxaan nasiib daraa 20 sano muddo ah ilaa 25 nin oo mageyda iyo magaalada dhexdeeda lagu dilay. waxa la yiraahdaa waxa loo dilay عارسي وحلا يله وحلا يدلي وحلا يله هذا سياسة وحلا يله هذا لما بيجا إنه عدي شيء عرمها يجا وحاول سببه أنا وحاول سببه هذا بالبهان تتيه وكتيره تيه وين سكر إن عفرت الصلاة ومدي نبي موسى مركي أيدي دي كلادي رسول كودا واتلي الفراحة كقعد 40 سنة تيه كجرا يعني تيه هرت كجرا سببتنا وحويه dadka waxa uu shaqeeya oo kala celiya oo u garsoora hogaamiyaasha dhaqanka kala celiya dulbaanta wuxuu leeyahay oo sheegta ay sheegtaan 20 nin baa sheegta inay ismayihiin 20 baa sheegta inay ismayihiin 20 kii sheegta ismayna yihiin mid kama joogo gobolka magaala madaxda kama joogo waxayna kaga maqan yihiin dana gaar oo iyagu leeyihiin dan dhulbaanta uma maqna. nimankii markay wax dhacaan dadka isugu yeedhi lahaa ee kulmin lahaa ee dadka wax ka qaban lahaa ayaa ka maqan dalkii iyo deegaankii iyo wixii loo magacawday. waxa kaloo jira uqaal wax la yiraahdaa jira oo ismada ka hooseeya sida ismadu ay u gaadheen dawladii markay burtay Soomaaliya 3 bay ahaayeen maanta la 20 bay marayaan. uqaashi maalinta mareysay 50 kana maanta waxay marayaan 300 bay marayaan. 300 wax dadkooda u shaqeeya ama isu yimaada ama dhacda isaga yimaada guud ahaanba beelaha dhulka degan ma jiraan. beela way jiraan gaar uqaashoodu ay fadhido oo shaqeeyaan oo macagaraadkoodii sida buuhoodle iyo beesha oo afkan ku dhufanaya ee bahar sameeyo inta kale wax isu yimaada caaqil iyo garaad midna ma leh. waxa weeye nasiib darradu kuwaasuna kuwooda u bay ku egyihiin niman magacan isugu yeedha oo u shaqeeya maahe iyaguna deegaankooda iyo dadkooda u bay ku egyihiin laakiin waa ku amaanan yihiin ismadoodina runtii way haystaan. nugaal bariya dhibaatada ugu weyn hadda ka taagan tahay mageydadii baa habeen walba suuqa la dhigayaa. dawladii joogtay ilaa 20 nin oo mageydada ah oo wax waliba ku jireen wax loo qabtay cid oo loo dilay ma jirto. kuwa la qabtayna waa eeda dawladda xabsiga u baa la geeyay oo lagu hayaa oo lacag badan iyo raashin badan baa lagu siiyaa. waxa nasiib daraa wadanka dhan habeen walba mageyda la dilayo oo cid isaga imaanaysa iyo cid ka wada hadlaysa iyo cid ka dabadegaysa ay jirin. waxaan leeyahay maxamuud bari fadhiga ha looga kaco dawladdu waxa ka qabato nimankii wax dilay hore la xidhxidayna hal laayo kuwa dambe hadda suuqa wax ku dilayana ee mageydada dilayana haday soo qaban waayaan odayaashooda hal la xidhayo saacaddiin hal la geeyo anuu kinaasaan ku Qadar Maxamed Cabdi BC 24 TV